horta marka laga hadlayo tacliinta waxaynu ka hadlaynaa wax nolosha bini aadamka waxa ugu muhiimsan. tacliin haddaan la helin nolol ma jirto. bini aadamku wuxuu ku hormaraa waa tacliinta. ummad kasta marka la qiimeynayo waxa lagu qiimeeyaa horumarkeeda tacliinta heerka ay ka joogto. sidaa darteed adduunka sida loo kala hormaray baa tacliintana loo kala sareeyaa. marka waxbarashadu waa furaha nolosha, waa horumarka. xataa waxa hadda nabadgelyada inoo diidan jiilka hadda kacay 20 sano u dambeeyay runtii waxbarasho macna lama ahayn dadka gudaha jooga ma aqaan wixii dadka dibadda u baxay qofkii waalidkiisa xoo jaacad ka bixin karay waxay ka faa'iideysteen. laakiin horumarka iyo nolosha waxa fura waa waxbarashada. marka haddii aan waxbarasho la helin wax deganaansho ma helayno, nabadgelyo ma helayno, horumar ma helayno. bulshadu waa labo, bulsho wadankii joogta iyo bulsho wadankii ka maqan. bulshada wadankii ka maqan sidoo ugu badan dadka wax bartay waa dad heerkoodu u sareeyo. inkastoo oo bulshada Soomaalida aysan u furfurnayn waxbarashada sida badan. bulshada wadankii joogta haddaan eegana wadankii dayac badan baa ka jiray. horta ummadeenu culture ahaan dhaqan ahaan waxay nahay dad miyiga ka soo jeeda. miyigana cilmi kala jira oo fan iyo suugaan ah. magaaladana cilmi kala jira oo in wax la barta ay tahay. tacliinta bulshada Soomaaliyeed waxyaalaha ku yimid dagaalada hoos bay u dhacday, laakiin wada maskax fiican. adduunka dadka ugu maskax fiican ayay ku jiraan Soomaalidu. runtii dadku waa dad madax furan, maskax furan, open minded nooc la yiraahdo weeye. waa haddii ay helaan chance wax ku bartaan waxa Soomaalida laga helaa dadka ugu sareeya oo waxbarashada ugu wanaagsan. tacliinta cunugga ilmaha Soomaaliga markay iskool ku jiraan number 1 number 2 way noqdaan diin iyo maadiba. laakiin waxaan u baahanaa inaan xoojino tacliinteena. dagaal baa nagu yimid, waxbaa nagu yimid, wadankii tacliinta hoos bay u dhacday, laakiin dib waan ka soo qabsan karnaa. wadamada aan joogno ayaan xoog saari karnaa. tacliinta aan xoog saarno. cunugga hawaayo cashada hawaayo, laakiin casharka yuusan weynin. waxbarashada waa ku liidanaa. waa arrinta runta ah. way fiican tahay inaan sheegno muxuu ahaay dadaalada isgarab socdo oo dhalinyarada ay sameynayaan. laakiin sida dhabta ah bulshada inteeda badanaa mar walba oo inaan ka qaadanaa tusaalaha. waxaa laga yaabaa adiga inaad tahay qof nasiib badan oo dadka kugu xeereersan ay yihiin dad wax soo wada bartay. laakiinse inta badan markii aad ka fikirtid waxbarashada markii aan leeyahayna kama wado levelada iska caadiga. waxaan ka wadaa waxbarasho sare oo qofka uu micnaha jaamacad ka baxo. inkastoo ay weli waxbarashada ay fiican tahay oo isdhaamta, laakiin waxbarasho heer sare ah oo qofka uu wixii soo bartay bulshada wax uga bedeli karo, waxan uu ku qaban karo markii la dhaho way yar tahay. Soomaaliya maraaxil badan bay soo martay. waxaa ka mid marxaladii Soomaaliya isticmaalka ay ku jirtay oo xornimada ka horeysay oo Soomaaliya aysan u bilownayn tacliintu. 1947 ama 1947 nin Ingiriis oo Soomaaliya wax ka qoray wuxuu cadeeyay in xataa iskool aysan jirin. marxaladii ka dambeysay oo la yiraahdo marxaladii Soomaaliya xornimada ay qaadatay, laakiin ay ku jirtay bilowgana waxyaalaha ugu muhiimsan oo tacliinta Soomaaliyeed soo celiyay waxa ka mid ah wixii seeraalaha la oran jiray. seeraalaha waxa tacliinta habeenkii la dhigto marka qof walba ama dawladda uu shaqeeyo ama ganacsadaha aado habeenkii ayuu wax baran jiray. laakiin tacliintu waxay aad u soo kacday marka af Soomaaliga la qoray 1972 wixii ka dambeeyay oo inta la dhaafay magaaladii baadiyaha loo gudbay. dad marka waxay nahay afkoodaba la qoray wax ma aragtay 70 wixii ka dambeeyay. marka taariikh dheer oo waxbarasho oo bulsho marka laga hadlayo majority ah ma jirin. dowladdu markay dhacday waxaan akhristay in hal ka akhristay buugaagta wax qoraa maadaama aan soo gaarin hal jaamacad iyo 3 kuliyadood inay jirtay. 3 kuliyadood iyo hal jaamacad iyo 3 kuliyadood inay jireen. marka waxaan isleeyahay bulshada Soomaaliyeed waa bulsho hadeer la qabsanaysa waxbarashada iyo adduunyada dambe ee furan. waa dal hadda muddo rubuc qarniya burbursanaa, dowladda aanay jirin, manhaj sax ah aanu ka jirin. waxaan filayaa
marka loo eego dowlad la-aan iyo halka heerka waxbarashadu marayaan aqoon-yahanadii dadaalay ee jaamacadaha furay ee iskuullada sare furay ee manaahijta kuwii dee dowladda Soomaaliya ee markaa jirtay ay samaysay weli sii waday waxaan odhan karayaa marka loo barbar dhigo dowlad la-aanta ka jirta Soomaaliya iyo sidii waxbarashadeedu tahay inay aad u sareyso fiican tahay in la dhiirigeliyana ay mudan tahay muxuu ahaay si fiican loo dhiirigeliyo si ay hawshan u sii wadaan maadaama ay shaqo dowladeed hayaan. Soomaaliya tacliintu waa ka jirtaa yayba xoog badnaan waagii dowladdu jidhay iyo hadda jaamacaduhu badan yihiin wixii la oran jiray dadka in banaanka loo qaado boosta stuudiyo iyo wixii la oran jiray waa yaraadeen waayo dowlad la ictiraafsan yahay ma jirto dowlad la iskaga ugaarsado hoogaa lacaga lagu tuuro dadka doonariska ahi dad u soo dirsadaan wixii lacag ay bixiyaan oo dadkaasu lacagtii la noqdaan waxyaalahaasaa iska jira wasaarad tacliimeed oo aad u dhisan oo fiican oo tifaftiran oo dalku u siman yahay ma jirto. horta waxaan aad ugu mahadcelinayaa macallimiinta Soomaaliya joogo oo dadka wax baro siiba aniga heerkii aan wax ku soo bartay oo kala tusaale ahaan meel gobol ahaan wax ku soo bartay iskuul aan ku soo dhigtay dadkii oo la haysanin hay'ad aan haysanin dawlad soo gaartay oo mishaar siinaysa ba macallin walba surwaalkiisa iyo shaatigiisa iska soo xiranaya isagoo og cid mishaar siinaysa inaysan jirin asagoo og hay'ad ku kormeeraysa inaysan jirin buu haddana intuu dhar ku soo xirto subaxii oo ciwaan liid ahna sabuurada kugu qoraya buug weyn wata oo dhabta soo aaraya oo maanta dhan wax ku soo yeerinaya kugu xiiqaya dhici karta haddii ay inta soo daadid oo lagu qaraaco in xataa mararka qaar macallimiinta xabad lagu rido ama cunuga wax u baray laftirkiisa uu toore u qaato oo la soo baxsado. waxbarashada Soomaaliya horta heer fiican oo aan dhihi karo maanta aad u sareysaa Sooma arkin laakiin ani ahaantayda heerkay la ahayd oo wax ku soo bartay waa ka mahadcelinayaa maadaama anoo og marxaladda aan ku jiray iyo dadka ila midka marxaladda ay ku jiraan haddana dad wax ku baraya ay heli karaan. markii aad fiirisid dadka kale amaba dunida inteeda kale waxbarashada waa wax iska caadi ah qofka inuu muxuu ahaayay degree sameeyo ama master sameeyo ama PhD sameeyo wax iska caadi ah waxa laga yaabaa anaga qofka markii hadduu jaamacadii ka baxaba waxaan ku tusayaa inay yar yihiin dadka wax bartay in ay tahay guul weyn ama success qofkii la dhaho jaamacad buu ka baxay saaway meelaha dadka kalena awowgiisii tobnaad uu PhD yahay cid sheegaysan aadan ba arkeenin insha Allah waa gaari doonaa heerka aan ku socono hadda laakiin markii aad fiirisid dhalinyarada khaasatan waxaad leedahay muhiimadda ay waxbarashada leedahay ma fahansana qofka khasab ma aha in uu waxbarashada wuxuu bartay inuu ku shaqeeyo oo reer ku biisho laakiin waxbarashada adiga marka hore ku bedelaysa wax badan baa ku furmaayo waxa awood u yeelanaysaa in aad muxuu ahaayay baxthi ama research amaba aad muxuu ahaay qaadid waxaad rabtid inaad ogaatid tusaale hadda inaad ka fikirtid dhibka hadda Soomaaliya haysta maxay tahay oo aad researchkaas qaadid oo aad ka fikirtid muxuu ahaayay halka muxuu yahay in aad isfahanka iyo dadka la dhaqankooda iyo wax walba macnaha wanaagsanaanay maadaama aad tahay qof wax badan yaqaano wax badan isticmaalkooda inay ku sahlan yihiin in ay ku fududahay in aad caruurtaada si fiican u barbaarisid adiga oo baranayo caruurta psychologicooda caruurta sida loo barbaariyo caruurta waxyaalaha muxuu ahaay muhiimka u ah nafaqada haday noqoto macluumaadka wax walba haday noqoto xamar jaamacado iyo waxbaa ka jira jaamacadahaas waa uu socdaan waa laga baxaa hadda iskuullada tacliintu waa jirta laakiin experience-kii iyo isdhexgalkii iyo maaragtay khibradii iyo shaqadii qofku goobtu jaamacadda ka soo baxo uu ku shaqayn lahaa horta wixii baa meesha ka maqan tacliinta intaa waxbaa la baranayaa waana jiraan saddex shay oo Soomaaliya burburkii Soomaaliya telefoon bay ka noolaatay telefoon ay leedahay isgaarsiintu waa fiican tahay boosto iyo jira laakiin telefoonada
iyo internetka iyo waxaas magaalo walba nal baa ka shidan oo koronto generator yar baa la helayo meel walba nalkaasaa ka daaran meel walbana iskuul baa ka furan tacliintu waa jirtaa maxaa dhiman marka khibraddii baa dhiman macallimiintii iyo buugaggii fiicnaa iyo buugaggii dowladdu gacan dowladeed haddayan jirin tacliintu ma tifaftirna ma buuxdo waxbaa ka dhiman laakiin intaa jaamacadaa lagu jiraa iskuullaa lagu jiraa magaalo aan iskuul ka furayna ama ma jirto ama waa yarta maanta markaan qiimaynayno Soomaaliya tacliintu runtii waxaa ka maqan wax aad u muhiim ah waxaa xoogga la saaraa in la helo tacliinta akademiga ahayd ilaa jaamacadaha laakiin waxaa maqan tacliintii farsamada gacanta oo ah tacliinta ugu muhiimsan oo dhalinyarada siin lahayd xirfadii ama skillkii ay kuna shaqaysan lahaayeen waxna ku qabsan lahaayeen oo de waxaynu nahay bulsho burburtay oo wadadii aynu haynay markaynu sii socon lahayn baynu habsaanay habsaankaasi marka wuxuu ina geliyay hakad dhowr iyo 10 sano kadib ah jaamacadii koobaad ee laga furay inta burburka Soomaaliya Camuud bay ahayd 99kii baa la furay waa 9 sano ku dhawaad kadib waqtigii burburku dhacay kuwa kalena way ka sii dambeeyeen 2001 2002 2004 dadka sax soo haysteen iyo la deero lagu jiro 2016 marka waxaan isleeyahay meel fiican bay maraysaa laakiin quality-gii sidii ma ahan jaamacadeed ma ahan luqadihii way liitaan wax lagu baranayay haddii luqadii afka Soomaaliga ay jaamacada lagu baranayna wax dhanbe ahaan lahayd oo afkii Soomaaliga lagu bartay afaf kale lagu bartaa afafkii kale lagu baranayayna waa lagu liitaa marka wadamada kale la yimaado oo sidii ma noqonayso fahamka ardayguna haddii uu wixii afkiisa ku baranaynin sidii la rabay ma noqonayo markuu wax baranayo marka afkiisina kuma barto af kalena uu ku baranaya afka kalena faham badan kama haysto iyo aqoon badan iyo aadu ma baranin marka dhibaatooyin badan oo noocaas waa jiraan laakiin waxaan isleeyahay hore u socod badan baa jira oo in laga niyad jaba aanay ahayn meel fiican bay maraysaa hadeer waana intaas oo looga sii dhawaado markaad fiirisid dhalinyarada wax baranayso waxa laga yaabaa inay yihiin 40% 60 kale ay beertiisa ka jiraan kuwa ugu roon baana balwad lahayn oo muxuu ahay fadhi ka durka iyo waxaas ma waqtiga ku dhameeyo waxa ka fahmaysaa marka waqtigeena muhiim bano ma laha qof baa waxa laga yaabaa inuu intaas oo san meel iska joogo laakiin uu ka fikiraynin maxaa qabatay isma weydiinayo maxaad baratay maxaad kordhisay qof hadaa dhahdid muxuu ahay niyahow ma iskuulkii aadid ama ma wax baratid waxa laga yaabaa asagoo 20 jir ah inuu ku dhum saacadana aadi kara niyahow iskool ama dugsi waxay waxbarasho ninka dhalinyarada wuxuu weydiin karaa sheekh ama walaal haddaan wax barto maxaa helayaa hebel oo weligiis iskool aadeen ninka ugu xoolo badan waa magaalada waxbarashada iyo xoolaha la isku xiro dhibaatada waxa weeye ilmaha maanta waxaan wax u baraynaa inay lacag yeeshaan oo xoolo yeeshaan waana khalad qofkii raba inuu xoolo yeesho hadda suuqa gal inta yar tahay waxbarashada waxaan u galnaa inaan bulshada wax ka bedelno inaan helno dhakhtar isbitaalka uu nagu fulan yahay sheekh imaam diintii iyo dacwadii buu xasuusinayaa lawyer waxa way muxaami way dhinaca sharciga iyo waxa ka saabsan buu naga caawinayaa waa nin maamulo ah maamulkii buu waxa way wax nagu tiraa engineer guriyihii aan degaynayo noo sameynaya iqtisaadi dhaqaalihi wixii buu noo ilaalinayaa qof kastoo meel buu nooga aadan yahay waxbarashada waxaan u baranaa in anaga aan isku filnaano community una xoo community ma aha in lacag lagu raadiyo ma aha